maanta runtii waa maalin runtii qaali ah oo nagu qaali ah xaqiiqdii inaan maanta aan goobjoog u noqono in ciidamadeena xooga dalka Soomaaliyeed ay helaan gawaari ay u baahnaayeen oo runtii aan aaminsanahay inay wax badan ay ku kordhin karaan jid dheer ayaan ku imaanay oo dib u dhiska ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ah hadday noqon lahayd ciidamada inaan tirakoobno hadday noqon lahayd inaan tayadooda aan kordhino ay tababaro badan aan siino maanta waxaan soo gaarnay in aan kordhino qalabkii ay runtii ay isticmaali lahaayeen oo maantana aan u helnay qalabkii ugu dambeeyay ee dunida ay isticmaasho maantana waxay qayb ka tahay dib u dhiska ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed xaqiiqdii dadaal badan iyo juhdi badan la geliyay ayay noogu timid alxamdulillah waxaan runtii aan rabaa meeshaan inaan ugu mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ah taliyaha ciidamada qalabka sida oo runtii ka go'an dib u dhiska ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed runtii aragtidiisii iyo tilmaamihiisa anagoo fulinayna ayaa maanta waxaan soo gaarnay inaan marxaladan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dowladda walaalaheena shacabka iyo dowladda ee Turki oo ugu horeeyo madaxweynaha dowladda Turki Rajab Tayyip Erdogan saaxiibkayga dhigayga Hulusi Akar iyo Shaar Guler oo asna ciidamada qalabka sida ee Turki oo xaqiiqdii sida xaqar la'aanta noola shaqeeyay in aan guushaan gaarno waxaa sidoo kale rabaa inaan u mahadceliyo saaxiibkeenna safiirkeenna safaaradda ee Turki Muqdisho iyo military attachee-ga oo iyagana si kal iyo laab ah oo walaaltinimo leh oo niyasami leh ee runtii noola shaqeeyay waa mahadsantihiin waayo ma ku soo koobi karna maanta dowladda Soomaaliya qaybo badan ayaad ku taageertaan hadday humanitarian noqon lahayd iyo hadday noqon lahayd isha capacity building wasaaradaha kale laakiin annaga tan waxay noo tahay astaan kale gooni ah inaad ciidanka nala dhistaan aad iyo aad u mahadsantiin taariikhda idin xusi doonta waa saa sheegtay dowladda Soomaaliya iyo dowladda walaalahana ee Turki waxa ka dhaxeeya taariikh fog laakiin maanta mar labaad ayaa taariikh waxa uu iskay madaxweynaha ee dowladda Turki Rajab Tayyip Erdogan iyo xaaskiisa markay intii yimaadeen runtii waxa furtay buug cusub aad iyo aad u mahadsantiin si kali laab leh anigoo ka wakiila madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa idin kala wareegnay wixii wanaagsan aadna siiseen oo ciidankeena aad ku deeqdeen waa idin kala wareegnay anoo magaciisa ku hadlayna waa idinkaga mahadcelinaa mar labaad mar saddexaad ciidankeena xooga dalka Soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa in ay wax badan ay taraan qalabkaani ay si wanaagsan ay u isticmaashaan insha Allahu tacaala waa bilow kuwa ka horeeyo oo baawar nooc kale waa noo imaadeen kuwana maanta imaaday kuwa kale waa noo imaan doonaan waxayna ka noqonayaan inaan dhisno mobile unit taasoo baahideeda maantana haysato oo aan u isticmaali kar doono operationka waxay niyad jebinaysaa cadowga ummadda Soomaaliyeed waxay niyadda iyo sheeg adeega hiddiilada iyo qulubtooda ay dhisi doontaa ama qalbigooda ay dhisi doontaa ciidamadeena qalabka sida shacabka walaalaheena ee Turkiga Allah ha guuleeyo shacabka Soomaaliyeed Allah ha guuleeyo dhamaanteena waxaan rajaynaynaa guul iyo barwaaqo dalkan oo nabad iyo barwaaqo uu gaarin waa arki doona aad iyo aad u mahadsantiin